waxaa la doortay inaan ka warramo jiilu saxaaba, facii saxaabadii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam. waa fac runtii culammadu waxay dhahdeen jiil fariid, waa fac ka gedisan nolosha dadkii soo maroo dhan. walidaalika waa culammada taariikhda rag ka mida waxay tilmaamaan jiilu saxaaba hortoodna wax la mida lama arag bay idhaahdaan, gadaashoodna wax la mida lama arag. waxaana la tilmaamaya ilaa qiyaamu saacu uu dhacona cid la noocii inaanay soo maraynin. jiilkani muxuu dadka kale kaga gedisan yahay? koo waa jiil intiisa ugu badan tilmaamo ay ka siman yihiin leh. waa bulsho dhan oo tilmaamo ka siman, hadday tahay caqiidadooda saafiya, hadday tahay dhaqankooda iyo akhlaaqdooda oo dhammaystiran, hadday tahay ammaanada diinta iyo siday u xambaareen ay u soo gudbiyeen, hadday tahay qalbigooda iyo saafinimadiisa, hadday tahay go'aan qaadashadooda iyo wanaaggooda, hadday tahay jihaadka islaamka u galeen. waa koox baa la yidhaahdaa halkay ka gaadhay diinta aan cidi ka gaadhin. waxaa la yidhaahdaa kooxdaasi ama ummaddaasi saxaabada ahayd, fardi ka mida hadduu taariikhda kala soo maro, qof ka midi taariikhda wakhtigaa waa la buunbuunin lahaa jiilku qofkaasi la noolaa. maalan cumar bin alkhataab hadduu casri dambe soo bixi lahaa isagoo cumara, waxaa la hubaa in taariikhdaa ay tilmaamaan lahayd wakhtigii uu cumar dunida hogaaminayay isagoo aan saxaabi ahayn. waxaa la mida bay leeyihin maalan dagaalyahanadu haddii khaalid soo bixi lahaa ama qacqaac ibnu camr soo bixi lahaa ama ragga la noocuu soo bixi lahaa. idan waa koox ka gedisan bay leeyihiin dunida kooxaha soo maray oo dhan, marka loo eego ballac ahaan intay tiradoodu leegtay iyo marka kor loo eego qimadooda inta ay gaadhsiisan tahay. jiilu saxaaba muxuu ku mudan yahay markaa? waxay yidhahdaan waa fac taariikhda ku suntan. muxuu ku suntan yahay? kow, cinda almuslimiin qiimayn gaara buu leeyahay. cinda culamaa'i taariikh qiimayn gaara buu leeyahay. bale waxay culammadu leeyihiin cinda allaahi subxaanahu wa tacaala buu qiimayn gaara leeyahay. waa kooxda qura ee la tilmaami karo ilaahay agtiisa waxay ka yihiin. dadka inta soo hadhoo dhan waxaad odhan kartaa axsabuhu walaa usakiiha cala allaahi axada. hebel waxaan u malaynaya waa nin fiican, dadkaasi waa reer fiican, jiilkaasi waa jiil fiican, ilaahayna cidna u ammaani maynaad odhanaysaa. ama jiilu saxaaba kuwa maaha, iyaga lama yidhaahdo walaa usakiiha cala allaahi axadan. jiilu saxaaba ilaahay baa taskiyeeyey. waa kooxda qura inay dad fiican ahaayeen rabu samaawaati walardi uu ka markhaati kacay. walidaalik maalan haddaynu tusaalayaal qaadanno, ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyay laqad radya allaahu can almu'miniina id yubaayicuunaka taxta shajara facalima maa fii quluubihim faanzala sakiinata calayhim waahaabahum fatxan qariiba. ilaahay wuxuu leeyahay ilaahay baa raalli ka noqday mu'miniintu markay geedka hoostiisa kugula beectamayeen. dadkan laleeyahy raallaa laga noqday ummadad intee le 1400 oo nin bay ahaayeen. 1400 oo saxaabo meel taagan ayaa ilaahay hadlaya subxaana wa tacaala, markaasuu leeyahy kuwaa ilaahay baa raalli ka noqday. waa shahaada min allahi subxaana wa tacaala. innagu dadka markaynu qiimaynayno waxaynu ku qiimaynaa muuqaalkiisa. qofka ama cibaadadaynu ka aragno, deeqda aynu ka aragno, tala fiicnida aynu ka aragno, ama qulubtooda dadka ma ogin iyo waxa u qarsoon. qoladan see ilaahay muxuu leeyahy facalima maa fii quluubihim baa ilaahay leeyahy. iyaga maaha daahirkoodaba wax la qiimaynaya. ilaahay wuxuu leeyahy waxaan ogahay waxa ku jira qalbiyadooda. sidaa awgeed baa faanzala sakiinata calayhim waahaabahum fatxan qariiba. waxaa la mida markaynu eegno fii suurati tawba, ilaahay wuxuu leeyahy laqad taaba allahu cala alnabiy waalmuhaajiriina waalansaari aladiina ittabacuuhu fii saacati alcusrati min bacdi ma kaada yaziiqu quluubu fariiqin minhum uma taaba calayhim innahu bihim ra'uufu raxiim. ilaahay waa ka toobad aqbalay baa la leeyahy nebiga iyo muhaajiriintii iyo ansaartii raacay nebiga wakhtigii adkaaya cuslaa nebiga raacay
wakhti ay u dhowaatay dadka barhkood quluubtoodu inay weecato oo dabeetana ilaahay sugay. dadka caynkan lagu sifaynaya waa kuwama waa ghaswatu tabuuk raggii galay. tabuuk yaa galay 30,000 maaha qof iyo 2 iyo 3 iyo 4 maaha, waa 30,000. 30,000 ciidanoo meel galay ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ku tilmaamaya kuwa ilaahay toobadooda u aqbalay. idan jiilkani ama facakani waxay dad oo dhan kaga gedisan yihiin baynu leenahay oo taariikhda ugu suntan yihiin. waa dad miisaankooday alle ku leeyihiin agtiisaa la garanayaa, maaha cinda albashar, cinda allahi subxaanahu wa tacaala qiimaynta ay ku leeyihiin iyo waxay ka mudan yihiin baa la garan karaa. ama wixii iyaga ka dambeeyey waynu odhan karnaa dadkaasi dad fiican bay ahaayeen, ilaahay baa si xaqiiqadooda og. adigu waad qiimayn kartaa, qiimayntaada waxaad isku dududo waad tilmaamaysaa, laakiin dee lama mid aha kuwa ilaahay iyo rasuulkiisii qiimeeyeen. cid aad odhan karto jannay gelaysaa ma jirto, dee kuwii ilaahay iyo rasuulkiisu iyagoo dhulka kor socda layidhi jannaa gelaysaan mooyaane. sidaa ogeed ayaa axad culamaa'i taariikh baa wuxuu idhaahdaa jiilu saxaaba mustawahan sare waxay ku gaadheen baan u malaynayaa buu yidhi 3 sababood. axad alculamaa'i lukhraana isna wuxuu leeyahay anna 3 kaleaan u malaynaya, bal aan wax ka tilmaamno. waxa uu tilmaamayaa qoraaga kani sababta koowaad ee jiilkan ay dadka uga gedisan yihiin war horta dee waa ilaahay baa doortay buu leeyahay, oo u doortay inay nebigiisa calayhi salaatu wasalaam u ahaadaan gargaarayaal. ilaahay baa doortay oo u doortay buu leeyahay bacda rasuulillaahi sala allahu calayhi waaalih wasalam dadka ummadda diinta gaadhsiinaya inay noqdaan. oo ilaahay wuxuu leeyahy wamaa kunna mucadibiina xataa nabcata rasuula, dadna cadaabi mayno inaanu rasuul u soo dirno mooyaane. nebi maxamedna waxaynu ognahay calayhi salaatu wasalaam 63 jir markuu marayay inuu dhintay. haddaa dadka dambe yaa u rasuul ah, ilaahayna wuxuu leeyahy wamaa kunna mucadibiina xataa nabcata rasuula. ammaanadaasi waxaa qaaday saxaabadii nebiga calayhi salaatu wasalaam. alaslu alculamaa warithatu alambiyaa, laakiin kuwa kani waa kuwii intay nebiga ka soo rareen calayhi salaatu wasalaam bini aadamka soo gaadhsiiyey. waxaad garan kartaa cidda ilaahay ammaanadaa ku aaminay ee ciddii koowaad ee nebi maxamed ka qaaday inaanay dad beenaalayaala iyo dad wax khiyaameeya iyo nooca kan inaanay marnaba noqonaynin.